boqorka 84 jirka ah ee dalka Sacuudiga Salman bin Abdulaziz ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee Riyadh isagoo la sheegay inay kaadidu hayso. Saudi Arabia's 84-year-old ruler has been admitted to hospital, according to state media on Monday. They say King Salman bin Abdulaziz is suffering from gallbladder inflammation and is undergoing medical checks in the capital Riyadh. wakaalada wararka ee Sacuudiga ayaa maanta sidaas sheegtay boqorka oo dalka Sacuudiga xukumayay tan iyo 2015 ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad sida ay sheegtay wakaalada oo aan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer kadib markii warkani la shaaciyay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa al-Kadhimi ayaa hakiyay booqasho la jalwadeeyay inuu ku tago Sacuudiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Amir Faisal Farhan al-Saud. boqor Salman ayaa 2 sano iyo bar ahaa dhaxal suga laga soo bilaabo 2012 ka hor inta uu noqon boqorka 2015 ka hor waxa uu muddo ka badan 50 sano ahaa barasaabka gobolka Riyadh. dhaxal sugaha Sacuudiga iyo ninka imika sida dadban dalka u maamula waa wiilkiisa Mohammed bin Salman. 40 jirkan ayaa waxa aad u taageera da'yarta Sacuudiga sabab la xiriira isbedelada uu sameeyay isagoo uu fududeeyay qaar ka mid ah xayiraadihii arrimaha bulshada ee ka jiray dalka kadib markii xuquuq dheeriya uu siiyay haweenka isla markaana ballan qaaday isbedel dhaqaale. hase yeeshee isbedeladaasi ayaa waxa dhinac socday caburo lagu hayo xubno ka tirsan boqortooyada dalka Yemen ee dadka badan lagu laayay iyo dalkii fadeexada reebay ee wariye Jamal Khashoggi oo lagu eedeeyay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman. Zakariya Abdi Sheekh Faarax Zakariya Saxane.